arrin culus oo aad aniga iga weyn ayaa gabar ila soo wadaagta asxaabta la wadaagay igu dhahday wallaahi waan dhaartay laba malaga garbeyga qoraayo inaan kalmad ani aan ku darsanaynin gabar kasta waxay ii soo dhiibato ayagana marqaatiyaan gashanaya inkastay meesha wax iigu soo qori karin oo dadkan gabdhaha aan qarinayo gabadhan arrin aniga iga maskaxdeeda qaadan karin ila imaaday wallaahi waan ka naxay gabadhan intool ii sheegatay biliis waxay u baahan tahay gabadhan talo saqiir iyo kabiir gabadhan arrinka heesto waxay tahay oo culeyska ku ah wallaahi culeys madaxa daalinayo waaya waxay dhahdaa abay gabar 25 u dhaxaysa ahay hooyadii aabay way kala tagan hooyadii aan la noolay hal wiil iga weyn dhahday hooyo waxay tir waxay ugu noqotay nabar aan baabiin hooyo waxay tir habaarka ayda afkeeda waxa ka soo gabar asturan ah gurigeena ma ka baxo hawsha gurigeena waan qabsadaa nin saaxiib lama ihi gurigaas idab aan u jooga albaabkaas kama baxo hooyo waxay ugu noqotay tir cuqubo iyo caqabad hooyo waxay ku haysaa tir naagii faca waa la wada aroosay aroos guumeysi u reeso maxaa ay tare naag xunaa tahay wiilashii process la raadinaysaa heer xataa wiilka weynaa ay dhoofiso maanta dhan waxay tir ani maba ii jeedba ama maray dilayso iyo maray caynayso anu qof weyn xataa maalmaha kamid ah safar aaday wiilka weyn inta la dhoofinay guriga uga tagtay habeenada kamid ah waxaan u soo kacay wiilkii surwaalka iga siibayo oo korkayga taabanayo qayle iyo buuq ka bacdi waxay tir wiilka habeenka ka bacdi wuxuu bilaabay inuu dilo hooyo inuu igu diro inuu si arxan darro ii dilo heer waxay tir korkayga nabraha ku yaala hadaa aragtida tirada ilinta cishan karin ee dhahday uu zaaid uu sii dili jiray tirada jirxumo aabe uma sheegi kari islaantii hooyadii eedadaan u sheegay way iga sii dareysaa 7 sano ma isla hadlin ani asaga meel baan ka baloogay saa idin sheegay maamada see process wiilasha u raadinaysa kii weyneed way dhaafsatay dibadda u dhaafsatay waa kii gabadha inuu kursada rabay muhiimada hadalka gabagabada waxay tir gabadhan ciilka iyo calool xumada iyo hooyadii dilka iyo habaarka waxay ii dheeratay ninkan aniga inuu kursada rabay oo ila dhashay aabe wax ma ogeey tir wuxuu ilaahay tir wiilka iska cafiyo iskala hadal calaay taxal ninkii wadanku ku soo noqonaa gabadha meesha talada ka rabta meeshaan waay ninka wadanku ku soo noqonaa ninkii dibad ka imaad maxaa ka taqaana oo dibad sii jira si loo soo dhaweynayo waxay tiraahdaa maanta waxaan rabaa kitaab inaan soo qaato inaan weysaystaan rabaa aabahay uu waco hooyo uu waco aan dhaw wiilkan ha soo weysaysto kitaabkaas gacanta ha geliyo inuunan idamcin dharka iga siibin taabanin haddana waxaan ka baqaa hadaan sameeyo meel aadama aqaanay hooyadii gurigeedaan joogay inay wiilkeeda igala safato oo idayriso oo adduunka geed aan qabsada aan waayo ayaan ka baqayaa ha ila soo taliyaan tiimkaaga waa talo culus waay wallaahi alcadiim waxaan kusii darsanayaa hooyooyinka waa idaawatiin indhaha markaan saaro 99.9 gabdho ayaa ooynayo oo wax maanta dhan hooyo ay dhibaatayso wallahi gabdhaha ninka ma ooyaan gabdhaha waxay ku ooyaan hooyooyinkow ilmihiina wiilashan aad dhowraysiin gabdhahan aad ka ilmeysiinaysiin waxaa iga qortaa ilinta gabadhaas ka imaana cunugaaga ku noqonay mid bad liibiyo ku dhinto mid xabad cunto mid qarax cuno noqona gabdhaha aad ka ilmeysiinaysiin xoogoodana aad cunaysiin gabdhaha niyad jabinaysiin joojiya ilaahay ka baqa